warka hore war soo dhaaf waxaa la kala garan lahay caashi faarax baa la kala garan layaa xarunta weyn ee TikTok shirkadda lahayd waxay ka dhawaajisay bilaha soo socda in hawada lagu cuni doono sababo jira awgood ani markaan maskaxdayda xun ka shaqaysiiyey waxay soo baxday sababaha loo xirayo inay ka mid tahay Soomaali Maxamed ama Soomaali Maryoli inay ka mid tahay waxa loo xirayo oo iyadu ay u isticmaashay bahalka sidii loogu talagalay si aan ahayn taasi oo ah in nimankii naagihii ay isku dhex yaacaan oo la kala garan waayaba xitaa waxay arkayay inaan garweyn samaysatay oo ay surwaal iyo muxuu ahaay shaati caadi qabto nin iska dhigay soo caadi ah hay haddana warka hore war soo dhaafiyo waxaan idin wado ama aad arki doontaan yaabay anigu adu ma yaabtay waad yaabi doontaa haddaad hore u yaabin haddaad yaabi doontaa bal muuqaalka ila daawo diibli qalbigu inuu ku jecel yahay diibli qalbiga inaad ku qoran tahay ma rumaysan tahay inaad ku qoran tahay ilaahow amar weynida waa ilaahay awoodiis bal adu eeg waa nin oday ah oo halkaas u garka la ekaayo garkii xeeray waad arkaysa kurtumihii garkii iyo halku timaha ka saalixiyay caadi tahay haddana garbasaar intuu jeeni qaarsaday lubiga hada ku haya meesha lubiga lagugu dhufay xabadka lagaa garaa ilaahay baan ku baryay baryahani waxaa soo batay ragga qoomuluudka ah in la qabto u baahan laakiin Soomaalidu ma aha dadka waxaas ka dhiidhiya ma intooda badan way ahaan jireen hadda ma laakiin waayo haddii ahaan lahaayeen waxaan maysan fiirsadeen ciddi garanaysa intii loo diro baa afka dhulka loo gelin lahaa kow haddaan lagaga siinna si uusan mar dambe waxaas ugu noqon baa loo samayn lahaa laakiin Soomaalidu waxay ku tusaysaa dameerka ka dhimatay waxaa ka daciifay iimaankii waxaa ka dhintay dameerkii waxay ku foorartaa ama ay ku yacni muxuu ahay foogan tahay kala saar iyo haybsooc iyo reehbel bas ah khaniiskan ama ninkan yacni laga roonaha ah haddaad maanta istiraahdo ninkan bal wax u sheeg kumanaan baa iska soo garabooday oo qabiilku daafici magac xumada adiga oo nin rag ilaahay ka dhigay aad halkaan u soo istaagta dhar dumar u soo xirato maama qofkii isku ekaysiya qoom uusan ahayn ilaahay waa nacladay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa nacladay qof walba yacni muxuu ahaayey wixii uu isku ekeysiyey ama uu shabahay unbuuna yahay marka kuma dambaabayno oo ma dheheenno ilaa qofka ma laga roonay laakiin man shabaha qowmun fa huwa minhum baa mar hore la yidhi qofki qof shabaha qoom shabaha ayagunbuu ka mid yahay marka waxay ku tusinaysaa maadaama dharkii iyo labiskii iyo haykalkii dumarnimo uu samaysanayo qofkani in yacni meesha ay wax ku jiraan laakiin waxaa la rabay haddii xitaa abuurista alle way jirtaa waxa la yidhahdo khunfe ama labeeb af Soomaaliya u dhahan way jiraan oo lab iyo dhadig isku dhex jira hadduu ilaahay ka dhigay xitaa inuu iska qarsoonaado oo sidiisa isku asturnaado oo yacni muxuu ahay ilaan garashadii lagama ilaawini ilaahay garashii xisbuu siiyey wixii markaa u shaqeyn oo ku meel maro baa wanaagsan laakiin banaanka iskeeno oo yacni muxuu ahay caalamkii iyo wixii adduun ilaahay balaayin qof ay daawadaan waa nasabad ka bax iyo diin ka bax marka waxaan oo kale marka arta loo fasiilna riboode fadlan muuqaalkana sheer gareey mahadsanid